Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan idiin wadaa rootiga quruxda badan ee pizzahaas. Hal cajiin ayaan ka sameynayaa sida ugu fudud. Hal cajiin aad uga sameysan kartaa rooti iyo pizza. Kusoo dhawaada channelka. Haddaad ku cusub tahay please subscribe dheh. Haddaad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Cajiinteeni waxaa ka sameynaa isla gudagalno insha Allah. 2 koob bur ah, vanilla powder, subag. Hadda waxaan ku darayaa sokor ilaa 3 qaado iyo hal yar isku noqotay. Masha Allah. Cid walba iyo qiyaastaada. Hal xabo oo kun ah. Wax easy aan ka sameynayaa 2 shay oo qurux badan oo qaali ah haddana masha Allah. Rootiga hal miis 2 shay kala ah saaraysa, hal cajiin ka sameysanaysa. Maxaa ka wanaagsan? Waxaan kaloo ku daray hadda 2 qaado oo leebita ah. Qaadadan isticmaalaya waa tan yariista ah. Tan weyn u dhigmata labadeeda qaado. Hal shay qaado waa half qaado okay. Waxaan kaloo ku daray koob caano ah. Wax biyo kuma qasaayo, caano kali ayaan ku qasayaa. Masha Allah, waa intaas oo kaliya. Booska subaga saliid waa isticmaali kartaa. Aniga subaga I love you ka ahay. Masha Allah. Cajiinteena waa intaas oo kaliya. Waa xabado kun ah. Burkii qaado 2 qaado sokor ah. Subag yar iyo leebito iyo carfis yar. Cajiinteeni halkaas ku soo baxday masha Allah. Cajiinta waa inay jileec ahaataa. Haddii cajiintaada jilicsan tahay ama pizza ha noqdo ama rooti ha noqdo everything uu macana uu quruxsanaanayaa. Haddii laakiin cajiinta ka adagta wax walbo sidee tahay uma hagaaga insha Allah. Rootiga iyo pizzahan hadda waa qasalay ma qamiirinin. Ceerinka ku kala bixina ma fahanteen. Waa ku kala saaray rootiga hadda hagaajinaya ma asoo kuskuusan lahaa iyo qamiiro saas oo kuskuusaya kuskuus yar yar. Saxanka yarkan soo diyaarsaday ayaan sarsaaraya sidaan u qasawaya qamiir ma sugin saxankiisu ku qamiiri doona insha Allah. Please videoga daawo dhameystiro waad ku qanci doontaa waan huwa taas iyada ah. Sida ayaan u kuskuusay rootiga waan kala fogfogay isku ma dhadhaweynin labadooda bacaan ku xiraaya. Cajiinta kale ii soo hartana waa tii pizzaha okay. Rootiga halkaas iga baxay, cajiinta pizza halkaas iga baxday. Masha Allah, waad ka heli doontaa please video wax badan ka faa'iidi doontaa dhameystiro. Wuu soo buray marka hadda soo kuskuusan ayuu qamiiray oo buray xabad oo kun ah qaybta jaaladan soo qaaday waan marmarinaya rootigii. Waan sii dhigaa bacaan ku sii xiraaya hore kama gelinayo ovenka intaan pizza ka hagaajinayo. Isku mar ayaan gelinayaa muddo 15 daqiiqo gudaheed ayaan ku soo bixinayaa insha Allah. Yaan ka hor dhicin dhameysto videoga please. Hadda waxa bad u kun oo qaybta jaalada kali ayaan marmariyay rootigi. Waad aragtaan wali wuu soo fufmay wuu soo qamiiray. Haddana pizza hagaajinaya saxanka pizza aan soo qaatay sifu iga qabsanin bur yar iyo saliid ayaan mariyay. hal xabaan ka dhigi rabaa pizza asagana say tahay cajiintiisa waa aragtaa masha Allah way jilicsan tahay. Pizza jilicsan oo qurux badan hadaa rabto cajiinta la iska jilci. Hadaa rabto caano ku qas biyo ku qas wuxuu diidaayo ma lahan. Saxanka ayaan gargaarsiiyay masha Allah si isla eg meelna yuu ka buuranin meelna yuunan ka qafiif ahaanin. Waxaan soo qaatay waxyaabo yar yar sambal ah oo yariis ah oo fudud. Pizza xitaa wax loo jeedo mehen maanta. Hal xabo kalluun ah ketchup ama tomato saa u taqaanid basal barbarooni iyo basbaas intaa kali ayaan ka sameynaa iyo cheese. Pizza asaga naftirkiisa soos uma bixinayo hilib kale kuma daraayi qudaar kale dheeraad ma lahan. Masha Allah sidoo ku soo baxay horena waad u soo aragteen gadaalna waad arkaysaan insha Allah. Hal xabo hal gasac oo ah malaay ama kalluun. Kalluunkan saliid waa ka soo miiray. Masha Allah haddana waxaan sarsaarayaa basal
waa kajab, malaay, basal, barbarooni iyo basbaas iyo jiis. Biizahana waa easy asagana maasha Allah. wax soo sii badan ma isticmaalayo. waad aragtaan wax qurux badan waad soo aragteen, gadaalna waad arki doontaan siduu ku soo baxay insha Allah. haddana waxaa soo sarsaaraya barbarooniga, xabadba meel dhig, hal meel ha dhigin maasha Allah. waa 5 daqiiqo aa laba shay kusoo kala tuurinaysid. rootigana waxaa rabtaa u baxsan kartaa, soos daarabtid macaan u sameyn kartaa. waxyaabo apple sauce iyo waxyaabo lagu isticmaali karaa macaan ah, ama suugo ama suqaar ama waxa lagu xataa hada koob caano lagu kabad xoog u jilicsan yahay waad arki doontaa. waxaan ku daray jiis aan soo hoqay ku kalo yariis ah oo diyaarsan ayaan hadda kor uga daray. biizaheen intaas uu ku egyahay 5 daqiiqo waxa dhan isa saar waay ma fahanteen. maasha Allah. biizii markaa soo dhameeyay waa aragtaan. sidoo kale markuu qamiiray oo wali hadda ovenka maanan gelinin waa aragtaan rootigi maasha Allah. labadiiba hadda ovenka la aadayaan waad aragtaan quruxda iyo sida u yaalaan dhulka ayagoo yaalaanba maho indhaha ka qanceenaa filaaya. waxaan hadda gadaal oga darayaa xabasoodada mirmiraha iyo sisin. waadna ka maarmi kartaa xoogo rootiga way qurxinayla wax dheeraad ma lahan. way iga qalashay way qabsan weysay. waxaan soo qaaday burashkii oo qoqoynaa baasaas u marmarinaya and then waan ku shubayaa marka hadda xabasoodadii iyo sisintii wuu ku dhagayaa marka hore, laakiin waan ku baraaweeyay wuu qalalay maho baalka intuu soo qamiiray labeen yar uu korka yeeshay. markii gudaha la geliyo waa arki doontaa hadda wuu ku dhagay markaan qoyaanka aan burashka marmariyay sisinta iyo baalkii kale. wow maasha Allah tabaarakallah. ilaahu noo barakay intaan haysanina si waa aragtaa sida quruxda badan ku soo baxay maasha Allah. biizahana waxa u mareysa biizaha qudaarta adduunka maxaa hilib iyo rafaad gabgab loo galay waxa dhan ma jirtaan ku dhahay saxaabay. 5 daqiiqo wax yar kaga soo tuuri kartaa oo hal cajiin ah. intaan hadda suqaar iyo raacisid maxaa u maleys waxa caadi ahayn maho waqti dhanna ma jirabo rafaad iyo wax badan raadinaysana ma lahan. rootiga bakaasaas ku soo baxay quruxda badan. biizihina sidoo kale waa aragtaan maasha Allah. rootiga gadaal markii laga gadiyana waa kaasa cake ma loogu dhaarto maasha Allah. haddana dhanka kale caadiga oo gadiyay waan gogoynayaa sidoo isbuunyo u yahay waa aragtaan. koob caano maxaa biyo qalalan hada ku cabtid xitaa dhuuntaada u maraa maasha Allah. waa aragtaan asagana xabad u jaraya indhihiina idin marqaati ah. rootiga waa aragtaan waa hal xabo oo kuna bur sokor maasha Allah tabaarakallah. waa asagaa soo miiski aaday caadi ahaan on saxamadii ka gadiyay maasha Allah. asxaabe please ha iloobin subscribe hadaa nagu cusub tahay, hadaa hore noola joogtana waa ku maasantahay daawashadaada.